السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسكينكي الله وولالكي شاكر oo ina leh meel walba joogtaan waa ina salaamayaa inta habeen u tahay habeen wanaagsan inta maalin u tahayna maalin wanaagsan insha Allah ta'ala si shargare walaalkay oo khayrka waa khayrka adigu ogeedeen waa khayrka aan isku jeclayn de waxa soo ogeen khayr baan soo ogeen khayrkana insha Allah ta'ala shargare oo maartay la wadaag walaalkaaga insha Allah ta'ala maanta waxaan ka hadlaynaa topigeena ama mawduuceena maanta wuxuu ka aadan yahay حقوق أوليه دريسك أيوكو أديه أو حن كاجا ورمية حق أوليه دريسك أيان كاجا ورمية هذه واحد دليل سطي لكني ما أنت وحنكوها يا حق أودريسك أوليه هاي أيان كوها يا ما أنت إن شاء الله تعالى إن توبيجنا إن جود جلينا إن شاء الله تعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحوليه كم من جار متعلق بدنا إمسا deriskiisa uu ku dhigi doonaa uu qabsan doonaa uu oran doonaa yaa rabbi haadaa aqlaqa baabahu duunii famanaca macruufahu. imisaa deriskiisa uu ku dhigi doonaa uu qabsan doonaa uu oran doonaa ilaahayow albaabkiiba iga soo xiran jiray qaadama dhargaban ahaa raashinka waa la qubi jiray albaabkii buu iga soo laabtay oo maaragtay uu kugu dhigi doonaa adduunyada markuu qofka joogo hadduu kugu dhigo waad iska baacinaysaa laakiin meel aada baacin karin ayaa jirto. mu'miniinta asagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u doodayo wuxuu leeyahay yaa ibna aadam maridtu fala tacudunii ibna aadanow waan xanuunsaday imaadan soo booqon waan araday imaadan arad bixin waan haraaday imaadan haraad tirin waan baahday imaadan baahi tirin. markaas wuxuu leeyahay addoonkii ilaahayow adigaaba qafuur raxiim ah seen wax kuu siiyaa buu leeyahay adigaa wax bixiyo qafuur raxiim seen wax kuu siiyaa. markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoonkaygibaa xanuunsaday waad maqashay maadan soo booqan addoonkaygibaa baahday waad aragtay maadan baahi tirin addoonkaygibaa haraaday waad aragtay maadan haraad tirin addoonkaygibaa arad la-aan ay ku dhacday waad aragtay maadan arad bixinin. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa u doodaya mu'miniinta oo maaragtay u dacwoonaya. marka deriska waa wax aada iyo aada u qiimo badan adiga inaad mooganeyn baa laga yaabaa aad ka warhaynin oo maaragta aada raashinka daadinayso deriskaadana u baahan yahay laakiin maalinka yowm alqiyaama ayuu kugu dhegayaa faraqa oo ku qabsan doonaa uu kugu dhegi doonaa oo leeyahay maaragta ilaahayow albaabkiibuu iga soo xiran jiray ilaahayow waxba imuuna siinaynin qaadama dhargaban ahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay oo ilaahayna u dacwoonaya mu'miniinta oo haddasaan kaaga soo sheekeeyey. marka deriska waa wax aad iyo aada u qiimo badan haddaad ka warhaynin hadda ka dambe ka warhay deriskaada ogow deriskaada xaq buu kugu leeyahay waa lagu weydiin doonaa maalinka yowm alqiyaamo. marka deriska waa in laga taxadaro dad badan baa moogan maanta inaana deriska ayna ka warhaynin oo maaragtay aanan ka warhaynin deriskiisa wuxuu ku sugan yahay. marka arrintaa aada iyo aada ha loo eego dib ha loo jaleeco maaragtay hal iska ilaaliyo arrintaas haddaadan garanaynin insha allahu tacaala waa walaalkiin oo iniisoo tabinayo arrintan deriska waa arrin xaquuq weyn uu kugu leeyahay waa inaad qaadataa arrintaas barnaamijkana aada dhegaysato aada deriskaadana aad kula dhaqanto sida wanaagsan waa lagu weydiin doonaa insha allahu tacaala. waa walaalkiin shaakir insha allahu xalaqooyinkan xalaqa kasii fiican baan iniisoo tabin doonaa barnaamijka sii shaargaraya walaalahagana gaarsii walaalkaaga gaarsii waxay noqoto marta hal kelimad oo yarna ha noqotee balliqu canii walow kaana aayadna ha noqotee ilaahay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyay gaarsii walaalkaaga. marka walaalahaygiyow insha allahu tacaala waa walaalkiin shaakir waa maskiinkii alleh insha allahu tacaala salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.